horumarka tiknoolajiga ee 2050 siduu noqon doonaa horumarka tiknoolajiga ee caalamka 2050 kusoo dhawaada barnaamijkeena maanta. Waxaan joognaa qarni tagay dabadii 2020 kaasoo muuqaal guud ka bixinaya horumarka tiknoolajiga. Aan ku bilowna ee tiknoolajigu wuxuu ugu horeyn horumarin doonaa gaadiidka gaarka loo leeyahay iyo kan dadweynaha. Baabuurtu waxay noqon doonaan kuwa raaxo iyo ammaan badan. Tiknoolajiga baabuurta lagu horumarinayo waxay darawalka u sahli doonaan maamulidda baabuurka. Waxaa la tijaabiyey soona bixi doona baabuur iswada darawal la'aan. Diyaaradaha yaryar ee aan cidi wadin ee drone-iska oo ay haddaba isticmaalaan militariga, warbaahinta iyo dadka wax duuba ayaa aad loo horumarin doonaa, iyaga oo dabooli doona baahi loo qabo adeeg boosto oo degdeg badan. Waxaa tijaabo ku sameeyay adeeqadaha drone-iska shirkado loogaga adeegto internetka. Inkastoo ay tijaabadu guul ku dhamaatay, weli suurtagal ma aha isticmaalka adeega drone-iska. Waxay drone-isku wax weyn ka bedeli doonaan isu gudbinta adeega degdega ah ee caafimaadka. Gaadiidka dadweynaha, tareemadu waxa ay noqon doonaan kuwo aad u dheereeya, dadweynuhuna uu aad u isticmaalo. Xawaaraha tareenka waxaa la gaadhsiin doonaa ilaa 965.6 kilomitir saacadiiba. Tareemadu waxay ka gudbi doonaan caqabadihii hore sida safarka oo dheeraada iyo daahitaanka. Waxaad si fudud ugu gaari doontaa meeshaad rabto adiga oo isticmaalaya tareen xoodan xawaarihiisuna sareeyo. Taasi hadday suurto gasho waxay noqonaysaa horumar aad u weyn. Artificialka ama dad u ekaha ku shaqeeya maskaxda kombiyuutarka waxay dadku dadaal ugu jiraan sameynta dad u eke leh garashada dadka oo kale. Waxaan ka hadlaynaa waa qalabka ku shaqeeya maskaxda kombiyuutarka. Waxaa ugu horeeya robotka kaas oo qaban doona waxyaabo badan oo ay dadku hadda qabtaan. Wuu kula hadlayaa, wuu ku salaamayaa, wuuna kuu adeegayaa. Kaaga sii darane wuxuu noqon karaa darawal waa hadday ku guuleystaan dadaalkooda. Waxaa meel walba laga heli doonaa nooc ka mid ah artificialka ilaa ay ku tala jiraan in lagu dhex sameeyo dharka. Suurtagal ma tahay in loo guuro hawada sare. Waxaa dadaal iyo horumarin loogu jiraa sidii loo gaari lahaa ku noolaanshaha hawada sare iyo meeraha Maariska. Meeraha Maariska ayaa la sheegay in lagu noolaan karo. Shirkadda Space iyo NASA ayaa 20kii sano ee lasoo dhaafay dadaal ugu jirta siday uga dhabayn lahayd riyada ah ku noolaanshaha hawada sare. Ma laga yaabaa in hawada sare qaarkeen dalxiis u tagaan 2050? Sameynta xubnaha dadka ay ka go'aan xubnaha jidhkooda sida gacmaha iyo lugaha ayaa loo sameyn doonaa xubno dhaqdhaqaaqaya. Xubnahaas oo la shaqeynaya amarka maskaxda sidaasna ku dhaqdhaqaaqaya. Xubnahaas la sameynayo ayaa waxay noqon doonaan kuwo uu qofku ku qabsan karo waxyaabo badan, aadna ugu dhow gacantii caadiga ahayd ee qofka bini'aadanka Ilaahay u sameeyay. Haddana waa laga garanayaa in ayna marna xubintan ama gacantan ama lugtan aysan ahayn tii caadiga ahayd ama dabiiciga ahayd ee Ilaahay qofka u sameeyay ama Ilaahay uu ku manaystay. Dadaalka dadka bini'aadanka iyo garashada bini'aadanku way xadidan yihiin. Ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa dhammaystirane ah. Wabilaahi tawfiiq.